wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, wasiirka wasaaradda warfaafinta, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka, wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha, wasiirka wasaaradda cadaaladda, gudoomiyaha gobolka Sool iyo ku-xigeenkiisa, duqa magaalada Laascaanood iyo ku-xigeenkiisa, gudoomiyaha gobolka Xaysimo, sarreeyaasha jananada kala duwan iyo saraakiisha ciidamada hogaamada iyo saraakiisha halkan aan ugu nimid aaga bari iyo marti sharafka kale halkan si joogaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib maanta waa sanad guuradii 29aad ee ka soo wareegtay aasaaskii ciidanka qaranka oo ah bisha February labadeeda. mudanayaal, magaalada Boorama ee gobolka Awdal waxaa lagu qabtay 1993 shirweyne qaran oo loogu soo dhisay dawladdii labaad ee ka talin doonta Somaliland. dawladda hore waxaa madax ka ahaa Allah u naxariistay mudane Cabdiraxmaan Axmed Cali oo madaxweynaha koowaad ahaa ee dawladda ugu horeysay. dawladda labaad ee halka lagu soo dhisayna waxa ka madax noqday ee shirweynaha lagu soo dhisay waxa ka madax noqday mudane Allah u naxariistay isna Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal, waxaana madaxweyne ku-xigeen u noqday Cabdiraxmaan Cali Faarax. wasiirkii daakhligana waxa uu noqday madaxweyne hadda jooga mudane Muuse Biixi Cabdi. dawladdii markaa la soo dhisay markay timid xaruntii waxaa laga maarmaan noqotay in la helo ciidan amniga maadaama ciidamadii maleeshooyinkii gobolada joogay aan ciidana xukumayn dhibaatooyin badan oo amnina ay jireen. waxa laga maarmaan noqotay in ciidan amniga suga in la asaaso. waxaa noqotay 1994 in la yagleelo ciidan 500 ah oo ka kooban beelaha Somaliland laguna saleeyay saamiga beel kastaba ku leedahay golaha guurtida. waxaa halkaa ka aasaasmay guutadii koowaad, waxaa ku xigay yadna guutadii labaad ilaa la soo gaadhayay halka aan maanta joogno oo ciidanku uu hadda joogo. intaa markii la qabtay waxaa lagu dadaalay bal ciidamada hadda la qarameeyay ee ciidamo beeladyada ah ee guutada koowaad iyo guutada labaad ba ahaa in tayadooda kor loo qaado tababar la galiyo. waxaa kaloo himilada labaad ahayd in maamulka dawliga la fidiyo. saddexaad waxay ahayd in la gaadhsiiyo nabadgelyada gobolada oo dhan. dhinaca tababarka ciidanka qaranku shantii sane ugu dambeeyay waxaa dugsiyada kala duwan uga soo baxay oo ciidanka qaranku biiray 7,000 oo askari. waa shantii sane ugu dambeeyay kana baxay dugsiyo kala duwan oo dalka ku yaala. waxaa tababar gudaha ka qaatay dugsiga saraakiil xigeenka ee Haragwaafi 700 oo saraakiil xigeen ah oo aqoontooda kor loo qaadayay. kulliyadda saraakiisha Cabdullaahi Askar waxa uu tababar saraakiilnimo ku qaatay 500 oo sarkaal oo kala ahaa saraakiil dibadda wax ku soo baratay oo dhaqan celin iyo discipliinka iyo gaardiga lagu baraayay iyo qaabka ciidamada. ardaydii shaqada qaranka soo dhamaysatay ee dooratay ciidamada iyo saraakiil xigeen 3 xariglayaal ahaa oo loo dalacsiiyay xidiglayaal oo loo dalacsiiyay.
شنطة بقول سركال بخب حي شنطة سنة توبر سراكيل أو دبده وحنوقو مكان صدق سركال أو إنجنير له أو دكاترة له أو فرسمية قانا له ورجينا يو سنة كدمبة إن يصير دميستان دمان توتو وحكلو جرا إن كورسوين بدن أضنا با أي قارة صوب بحين قارة هذا وجدان أو يصير دميستان قارة هذا تجيء شنتي سنة ودن بيا عيدا كقرن وحكو صوب بيرين لو بقوليو كنتون قاري أو عصب أو كلا دوان نوعية كلا دوان له waxaan daayactir ku sameynay 5 urur maadaama ay nasaaran yahay bando xagga hubka ah waxa laga maarmaan noqotay wixii aan haysano inaan hagaajisano oo daayactirro waxaan daayactiray 5 urur oo madaafiicda goobta oo maanta shaqeynaya diyaar waxaan daayactiray 2 urur oo taangiya oo maanta shaqeynaya oo diyaar ah dhinaca dhismaha waxaan dhisnay 62 dhisme oo cusub oo hangar xafiisyo guryo la seexdo iyo nooc kale waxa kale oo daayactiray xerooyin badan oo ciidanku lahaa intaasun kuma eekin waxa kale oo ka howlgalaa arrimaha bulshada ciyaaraha marka laga eego wixii orod ahay sanadkan la qaatay annaga qaadanay koobkii kubadii cagta ee sanadkana gobolada loo dhigay 1 iyo 2 ciidanka qaranka qaatay shantii sano ugu dambeeyay ciidanka qaranka waxa ku soo biiray 250 gaari oo cusub oo kala duwan noocyo kala duwan leh waxa laga maarmaan noqotay wixii aan haysano inaan hagaajisano oo daayactirro waxaan daayactiray 5 urur oo madaafiicda goobta oo maanta shaqeynaya diyaar oo maanta shaqeynaya oo diyaar dhinaca dhismaha waxaan